runtii reer baadinimadu salbiyaad iyo iijaabiyaadba way leedahay yani positive iyo negative ba wax fiican iyo wax xun ba labadaba way leedahay wax fiican oo aad u badan bay leedahay oo lagu yaqaan reer baadiya deeq bay leedahay anaani maaha had iyo goor qofka reer baadiya ku nool waa qof nakhwa leh waa qof yani aan aqbalin dulinimada iyo in la gumaysto ama si la cadaadiyo ama caynkan aan aqbalin wax badan oo sharaftiya buu leeyahay naqaatu ducufna wuu leeyahay meelo uu ku liitana wuu leeyahay waxaynu ka tilmaamnay maadaama inagu aynan xadaarad lahayn inagu ma kala lihiin magaalo iyo baadiye waxaana kala sheegaysaa xamar iyo ka gala raac waa isku nooc ma aha xadaara meeshan ma taalo waa ahlu badwi uun midna weli geeli raacaya midna shalaytu ka yimid xadaara qadiim oo aynu cid hore ka dhaxlayna way tirtiratay yani melihi qarnigu ma lahayn xadaare wuu lahaaye waynu lumina maynan soo gaadhin waa iska baabaaday caqliyada marka aynugu jirta ama surwaal ha xidho ama macaws ha qaato ama go' yar ha guntadee caqliyadu waa caqliyada socodka ku wada salaysan ee iminkana aad dayaxa inay qabataan sii raadinaysaan soomaaliya laga yimi waa caqliyada raran ee waxeeda tuurta ku sidata waxaan leenahay marka caqliyadeenaasi melihi ma laha wax positive ah ee wax badan oo fiican bay leedahay oo ay ku ammaanantay oo ay reer magaal badan ku dhaanto laakiin waxaan kaloo leeyahay waxay leedahay meelo dacfi uu ku jiro sida daraaddeed maadaamaan ka warramayo macaalim fii siyaasati lumma aynu rabnay inaynu dadkan hogaamino meelaheenna wanaagga hadda waynu isla ognahaye waxaan rabay inaan tilmaamo meelaheenna dacfiga uu ku jiro ee u baahan inaynu ka kabanno oo hore uga guurro erayadan aad kala sheegaysaana anigu wuxuun baan u jeedaa un waa dad aan lahayn tajribo dheer oo u guntan oo meel u taalla ama badaawo ku sheeg ama badwi ku sheeg ama reer baadiye waxa doonta adigu u bixiyo ama nomadic dhaho waa dad tajaaribtoodii hore ka luntay oo kolba waxay markaa haystaan u ku binaysta wallahu aclam